anu dhankayga aanan hadalka ku dheeraanaynin bal waxaan rabaa in aan idin kala qeexo farqiga u dhaxeeya hogaamiye ama mas'uul ama waxaan la yiraahdo hortooge iyo hogaamiye iyo farqiga u dhaxeeya waxay kala yihiin waxaa laga yaabaa inay dad badan isku khaldahayaan leader oo ah hogaamiye iyo waxaan la yiraahdo chefka ama chef ama madaxweyne ama xataa haddii la dhaho ra'iisul wasaare ninku doonay ha ahaado ama mas'uul yani marka mas'uulku daa'iman waa horjooge marka mas'uul ama horjooge kastaay wuxuu hayaa boos ama jago hogaamineed balse horjooge kastaay ma aha hogaamiye meesha hogaamiye kastaay uusan haynin mas'uuliyad ama uusan joogin boos hogaamineed horjooganimada iyo hogaamiyenimaduba waa deeq ilaaheen baxsho oo xaggiisa uun ka timaada sida laba aayadood oo qur-aanka ka mid ihi kala tilmaamayaan middan hore eebba wuxuu siiyaa cid walba oo addoomihiisa ka mid ah iyada oo aan loo eegaynin diintooda dadnimadooda caqligooda cilmigooda caafimaadkooda dhimareed iyo kan jireed midnaba taasoo noqon karta mid la mahadiyo waa mas'uuliyaddaasi iyo horjooganimadkaasi amase mid lagu hungoobo lagu hoogo oo huwan shar iyo shaar ibliis oo ay ku xeeran yihiin la taliyayaal masruuf iyo maradaydaya dadkuna isku heeraamaan ugu dambayn adaa keenay iyo adaa ii lahaa balse midkoodna eed kuma lahaa keenistiisa waxayse noqon karaan bulshadu ama dadku falkaabe ilaahayna waa isagii lahaa qulillahuma maaliki lmulki tu'ti lmulka man tashaa وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير marka waa siismo iyo bixin ilaahay uu dadka siiyo haddii ruuxu uu sideeda u gudan waayana haddana in laga qaado ayay u badan tahay oo laga siibo tan labaadii waa xikmad eebba ku manaysto hogaamiyayaasha uu khayrka la doonay oo qura xikmaddaas oo ku dheehan hanuun hogaamineed waxaana hoggaankaas ama qofkaas la waafajiyaa wanaagga qaybihiisa kala duwan waxayna ka soo ifbaxdaa oraahdiisa iyo ficilkiisa labadaba oo makhraati iyo muufukayn midnaba uma baahna hoggaankaasi wuxuu dadka dhexdiisa ka helaa aqbalitaan iyo soo dhoweyn ka fog reernimo iyo afmiishaaro ama beenaalayaal bumbuunintooda hagahaas badanaa waxaa ku xeeran ama la taliyaal u ah kuwa dantoodu tahay in samuhu fido ama samuhu sifo u noqdo guud ahaan bulshada gaar ahaanna hoggaankeeda sare arrinkaasna aayad kale ayaa caddaynaysa oo suuratu baqara ku jirta oo ilaahay uu leeyahay yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad utiya khayran kaiiran wamaa yadakkaru ilaa ulil albaab haddaba hadday bulsho ama ummadi kale hadmi weydo isla meeraysato qolaba qolo tuhunto oo ay sidii kaadidibi isku wareegaysato waxay badanaa daliil u tahay in aysan ummaddaasi haysanin hogaamiye xikmadii hu u tahay balse horjooge eebba xukun siiyey hor yururo middaas oo sababta jahwareer iyo isqabqabsi aan barbilow iyo dhammaad toona lahayn asalka sababtana aan la garanaynin qaskaas ama tiihaas oo qayb ahaan horjoogahaas iyo guurwadayaashiisu si toos ah uga mas-uul yihiin arrintaasna waxaa tilmaam fiican ka bixiyey allahu naxariistee xaaji aadan afqalluuc maruu lahaa xaajadii ninkii dhay lahaa kala dhantaalayo dawo iyo inay nabad dhashaa waa midaan dhicin haddaba saaxiibayaal haddii mas-uulku ama horjooguhu ka aradmo astaamaha ama calaamadaha hogaamiye leeyahay oo ay ka mid tahay inuu leeyahay aragti fog oo xikmad ku salaysan keenidda xal waara
oo ku qotoma cilmi iyo khibrad siyaasadeed oo ummadda kala haga abuuradda hab iyo nidaam hufan oo ay bulshadu raacdo kaas oo ku dhisan cadaalad iyo sinaan waxaa ka dhashaa arrimahan soo socda iyo kuwo kale oo badan oo ay bulshadeennu maanta la nooshahay. midda koowaadi waa maamul xumo iyo talo la'aan ama la talin xumo waxaana ku xeeran guulwadayaal la talin ku baaga qaata. lambarka labaad garsoorka iyo hay-adaha sharciga oo shaqo gaba booskana ka saara isla xisaabtanka iyo isixitaanka hay-adaha kala duwan ee xukuumadda talada haysa iyo bulshada dhexdeeda oo u kala xaqsoorta dulmanaha bishinta ruugahaya iyo daalimkii dhagarta ka galay ee iskara fadhiya uqaxyaha dhexdooda. ta saddexaad waxaa weeye tiirarka cadaaladda iyo sinaanta oo hargalo bulshada dhexdeedana isnac iyo kala fogaasho ka dhalato taasoo ay adkaan doonto in si sahla loo dhayo mustaqbalka. tan afraad waa qorsho la'aan iyo isqabqabsi ku yimaada horjoogayaasha sare gudahooda taasoo meesha ka saarta kala dambayntii iyo shaqo wadaaggii xukuumadda dhexdeeda. tan afraadi waa musuqmaasuq iyo boobka hantida qaranka oo baaha iyada oo ayna jirin xakame iyo xishood midnaba xag rabbi. aan ku celiyo qodobkaas musuqmaasuqa iyo boobka hantida qaranka oo baaha iyada oo la isticmaalayo ganacsato aafaysan oo adduun iyo aakhiro toona xeerinaynin kuwaas oon lahayn xakame iyo xishood midnaba xag rabbi iyo mid aadame toona. lambarka shanaad waa tagrifal iyo ku amartaaglayn awoodeed oo gaadha heerarka kala duwan ee xukuumadda taas oo dhalisa in la aaso xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka iyo karaamadiisa. lambarka lixaad waxaa weeye qabyaaladda oo bulaasha qoysnimada oo xoogaysata iyo weliba qolebaagsi iyo si xawli ah oo u soo ifbaxdo aarsi iyo dekanooyin hore soo faarfaadhisto. marka sideedaadii waxaa weeye salaadiinta culimaa'udiinka iyo abwaaniinta oo gaba gebi ahaanba dowrka ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda raallina ka noqda jawrka iyo burburka dalkooda iyo dadkooda si ay dheef iyo dhuuni u helaan iyadoo mar walba lala duuban yahay midka fadhiya xeedhada asalkeeda. lambarka salaadood waxaa weeye madaxda iyo maslaxada dalka oo isku dheehma oo weliba madaxda iyo mas-uuliyiinta sare oo la xejiyo ama isxejiya koox ama qabiil gaar ah. lambarka tofnaad waxaa weeye saxaafadda oo ka indhabeesha ama laga indhatiro dhibka dul saaran ummadooda una sawirta dhaan dabangaalle iyo dhadhab aan jirin suuro fool xunna ka bixisa cid kasta oo xumaha iyo xadgudubka horjoogayaasha tilmaanta. lambarka tobnaadna ama 11aadna waxaa weeye sharwadayaalka ama faasidiinta ama mararka qaarkood sida dadku dhahaan faasiqiinta oo horjoogayaashu soo dhowaystaan si xumuhu cayda caraatanka iyo fasaadka loo sharciyeeyo isla mar ahaantaana loo fogeeyo muslixiinta naamus wadayaasha iyo cid kasta oo gacanta ka geysan karta samabixinta ummaddan shilalka saaran midaas oo looga gol leeyahay si booska looga saaro in tooshka lagu ifiyo xadgudubyada abaabulan boobka hantida ummadda iyo soo celinta xuquuqda shakhsiga iyo karaamadiisa. haddaba haddii intaas oo qodob ama barkood ka soo ifbaxo bulshada dhexdeeda waxay daliil sugan u tahay in bulshadaasi god madow oo kii gabadhii yarayd ee dalkeenna ku dhimatay meesha cidlada ah 3 maalmoodna godka ku jirtay ee mumtaas ahayd sideedii oo kale in bulshaduna ka dhex qayliyeyso god madow oo aan lahayn meel la fanto balse aysan is ogeyn bulshadaasi. ugu dambayn
had iyo jeer waxaa mudan dadku inay xusuustaan xikmadaha iyo suugaanta iyo taariikhdii la soo maray ee dadkani uu leeyahay. waxaan aad u xusuustaa gabaygii uu lahaa Dhoodaan ee la odhan jiray isweydiin. gabaygaas oo isleeyahay wuxuu ku fadhiyaa xikmad badan, wuxuuna daliil u noqon karaa nin walba oo mas-uul ah ama kii loo tiriya ha ahaado markaas ama kuwa ka dambeeyey ama kuwa maanta jooga. waxaa beedadkiisii aadka ii soo jiitay ka mid ahaa warqaylaa willane yaa dadkii weydan kaga siiyey, sida weyla baadi ah maxaa kaga wadhaac siiyey warabaha qarsoon yaa noqdo ruuxu jirbad. aad baad u mahadsantihiin. halkaasna waad ka sii wadi kartaan niqaashka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.